السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أصحابتا أرديدا قاليا أو أفلح أونلاين كحران. بوغن هدي لها إدمه هو بوك وذا شاكيسي waxaanu bixinaynaa conversation weeye waxaanu bixinaynaa wada hadal marka buuga wada hadalka ee conversationka wuxuu noqon doonaa casharkii ugu horeeyay marka waa sidaas oo kale waxaad ka daawan doontaan online-ka iyo bartayda YouTube-ka ama www.aflahonline.com haddii aad casharradeeda su'aalaad ka qabtid mar walba waad nala soo xiriiri kartaa waxaad email ugu soo dirtaa haddii ilaahay idmo afkayga gmail.com maanta markaa wada sheekaysigan waxa uu dhex marayaa labada qof waxaan u soo gaabin doonaa xarfaha kala ah A and B. What's happening waa nooc ka mid ah salaamaha ay isku salaamaan dadka dhalinyarada waxay la midna tahay oo kale maxaa isku dhacaya ama maxaa cusub oo kale what's new ama what's happening maxaa isku dhacaya waa ereyga waana nooc ka mid ah hadal suuqi aynu niraahno laba qof oo dhalinyaro ah wada sheekaysanaya qofkii ugu horeeyay ayaa waxa uu yiri here is my picture waa kan sawirkayga qofkii kale oo ku xigay ayaa wuxuu yiri I like it waan ka helay tell me about it bal iga waran iga sheekee ayuu yiri qofkii I like it tell me about it waan ka helay sawirka tell me about it bal iga waran ama iga sheekee well waa hagaag I am a woman waxaan ahay haweeney of course طبعا I have a long straight hair and black hair waxay tiri waa hagaag waxaan ahay haween طبعا waxaan leeyahay tima dheer iyo indho madow aan mar labaad idinku celiyo jumladaas well waa hagaag I'm a woman ayay tiri waxaan ahay haweeney of course طبعا I have a long straight hair waxaan leeyahay timo toosan oo dhaadheer kelmadda straight waa toosan sidaad ogtihiin timaha haweenka qaarkoodna waa timo toosan qaarkoodna waa timo duuduuban dadka Soomaalida ayaa waxay u badan yihiin timaha nooca duuduuban ee jilicsan laakiin straight hairka waxaa la oran karaa waa sida tinta hindida oo kale waxaan leeyahay timo dheer oo toosan iyo indho madow I have long hair waxaan leeyahay timo dhaadheer and black eyes iyo indho madow qofkii kale ayaa wuxuu yiri but hase ahaatee your hair timahaagu is short way gaaban yihiin and curly waana timo duuduuban timaha duuduuban saan idinku lahaa waa timaha nooca Soomaalida oo kale gaar ahaan haweenku oo kale waa wax anagu Ilaahay u abuuray mararka qaarkood dadka kale ee timaha toosan u dhashay ay ku qaadato inay si farsamaystaan si ay timaha ugu duuduumaan taasoo ka mid ah quruxda hase haatee qofkii wuxuu yiri but laakiin your hair is short timahaagu waa gaaban yihiin and curly now haddana waa ku timo duuduuban sidee wax u jiraan qofkii gabadhii kale ayaa waxay ku jawaabtay you know ma ogtahay ama waad ogtahay people change waad ogtaho people change dadku way isbedelaan tell me about your picture bal adigana waxaad iga warantaa sawirkaaga aan ku celiyo jumladaas you know waad ogtahay people change dadku way isbedelaan tell me about your picture bal waxaad adigu iga warantaa sawirkaaga well qofkii wuxuu ku jawaabay well waa hagaag of course طبعا I'm a man anigu waxaan ahay nin I have mustache waxaan leeyahay shaarbo and glasses iyo kiyaalayaal and brown wavy hair waxaana leeyahay timo midabka brownka qaxwaha ama la oran karo nooc ka mid ah cilaanka oo kale oo wavy hair wavy ereyga wave waa hirka laakiin sidoo kale timaha Soomaalida oo kale marka ay aad loo gaagaabiyo oo la mariyo waxyaalaha la yiraahdo jeelka oo kale waxay u samaysmaan sida hirka oo kale
marka waxaa la oran karaa kuwaas oo kale wavy hair, timo sida hirka oo kale leh oo ah. aan ku celiyo jumladaas. Well, hagaag. Of course, طبعا. I'm a man. anigu waxaan ahay nin. I have a mustache. waxaan leeyahay shaarbo and glasses iyo ookiyaalayaalna waa ii xiran yihiin. I have waa ii xiran yihiin ookiyaalayaal. An tusaale ahaan wuxuu raaciyey sidoo kale waxaan leeyahay brown wavy hair, timo midabka cilaanka ah ama qaxwaha oo kale oo wavy ah, hair oo ah sida hirka. mararka qaarkood markaan baran jirnay Ingiriiska waxaan aad ula yaabi jiray noocyada kala duwan markay ka sheekaynayaan dadka cadaanka ah timayoogooda ama qalarada. annagu waxaan nahay dad badana isu eg xagga midabka, xagga timaha wax yar mooyaane dadka badidii, laakiin ayaga waxaad ka helaysaa dad indhahooda ama timahooda ama maqaarka jirkoodu ama xataa xinibahoodu oo aad u kala duwan yahay. waa sababta ay magacyada badan ugu yeeraan. gabadhii ayaa waxay weydiisay, waxay tiri but laakiin you don't have a mustache now. hadda shaarubo malihid. but you don't have a mustache now. laakiin hadda shaarubo malihid. markaasuu waxa uu ku jawaabay as you said, sida aad tiriba people change. dadku way isbedelaan. casharkanna waxa weeye cashar gaaban. haddaad dib ugu noqotid waxaad ka baranaysaa erayar yaryar oo ah bilow ah iyo qaabka wada sheekaysigu ay u dhacaan. casharkaasi dib ugu noqo. wixii su'aalah oo aad rabtid inaad weydiisidna waxaad iigu soo diri kartaa emailka afkayga gmail.com ama barta commentska. haddii ilaahay idmana waxaan isku dayi doonaa casharka ku xiga ee ah wada hadalka inaan wixii jawaabaha oo ardayda aan ku soo diro. sidoo kale waxaan idiin sheegayaa dadka dhagaysta qadka telefoonka ee ah nambarkan 7123253 waxaad riixdaa eber. waxaadna noo dhaaftaa fariin ku aadan casharkan ama jumlad aad jeceshahay inaad la wadaagtid ardayda ama waxaad rabtid inaad macallinka aad weydiisid. jawaabteedana waxaan ku soo dari doonaa haddii ilaahay idmo casharkan. su-aal walbana ha ku aadanaato meesha loogu talagalay ama casharka. marka nambarkaa wacdid waxaad riixdaa eber, riixdid fariinta dhaaf, kadibna waxaad riixdaa pound si ay fariinta noogu soo gudubto. taanu ku kulmi doono casharkayga kan ku xiga ee wadahadalka. waa anigoo Axmed ah waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi